firdhiyaa laga gaarsiiye firdhiyow dagaalka aad guddoonsatay inaad Puntland la gashid yuusan ku dhibin hadhow yuusan ku dhibin hadhow ciqaabta dambiyada aad galaysidna hadhibsan markaad maraysid hadhow Puntland sidaad ula dagaalamaysid si la'eg ayay u dagaalami doontaa shalay haddii la lahaa waa curdan dadka shacabka ay walaalaheena dhibaatoobaya maanta ma dhici doonto dhibka aad Puntland ku tala gashay iska caabin baa ka imaanaysa waxaa dhici doonta daasada caana booraha la ascaanay $100 ka istaagto u diyaar garow ciqaabta cadaawadda aad abuudhay xaqiiq بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شعب كرير بنتلان هل بان لا يهي أغيسين يانا فرديانا مدقا قارسية أو شهر قراية فرينتين شعب كرير بنتلان وحنا أغيسين يا لباتني أفر ساح شرقة طيور هاي سلاكين شعيدة مدى بنتلان إن قوان ليسلا قارين حدودها بنتلان لصوحره إلا سناق إلا النقال يصول إلا يمدق لما حدودها رير بنتلان وأي حرانة يساب بنتلان إذا ما ضنا وحي قاتين أمر كما دنبيسا لباتني أفر ساعة سو سعوتنا وحد أركي دونتان دبابات كعيدا مدى حدودها اسكو بلاري شعب كرير بنتلان هالبان ليه وحان ليه هاي دولة بنتلان وحي قاتي جد عد أو قف كستو عدو بنتلان أما عدو بنتلان للصعودة إلا ردك علمو إلا دمشق شعب كرير بنتلان waxaan ogeysiinayaa dawladda Puntland ay qaadatay go'aan qof kasta ay khalad ku galay in qaabtiisa inuu maro shacabka reer Puntland waxa loo baahan yahay inay garab istaagaan dawladooda xogtaan idin siinaya waxa weeye dawladdiinu waa jihaysatay dagaal bay u jihaysatay cadow gudaha iyo mid dibadda intaba in la dagaalamo jamaahadii ka soo baxay ee xasan yiri waxaan ku abuurtay meesha la Puntland ee awal mushaarka siin jiray banaankii maanta u soo baxay hadday banaanka u soo baxeen oo caruurtii iyo dumar ka soo dhaxbaxeen waa meesha kaliya oo maanta ay ku habboon tahay in lagu dagaalamo laguna laayo 25 sano oo ay ka soo wareegatay 2001dii darbaaxadii ku dhacday jamhadan ka horreeyay ee carta laga maalgelin jiray sida hadda xamar looga maalgelinayo xilligii jaamac darbaaxadii ku dhacday ayay 25 sano Puntland kala dambeyn iyo nidaamka iyo constitutionka u raacis qof kastana ka baqayay in darbaaxadaas ku dhacdo darbaaxadii waa duugowday dawladda Puntland waxay go'aansatay dib in loo cusboonaysiiyo qof kastana khaladka uu geysto in qaabtiisa u maro shacabka reer Puntland waxaan leeyahay u diyaar garooba dagaal banaanka iyo gudaha intaba cadawga reer Puntland cadawga ama buur saarnaado oo cilmada hoos saarnaado ama calmiskada saarnaado ama garowe iyo boosas ku dhax fadhiye cadawgu waa isku qiimo waana isku mid kastana waa mid raba inuu nidaamka ka jira Puntland iyo constitution ka jira inuu burburiyo inuu diido dadka shacabka reer Puntland inay noolaadaan oo amni ku noolaadaan ma kala sokeeyaan Cabduqaadir Muuminka meesha la yiraahdo ka dagaalamaya calmiskad yeena kilwaha saaran calmadow iyo ina diyaanaya jamcaalaha garowe hubka ku dhaxaysta oo raba jamhadda xasan la socdo maanta aan arkaynay hadaladii ka dhacayay shalay meesha la yiraahdo laascaan dawladda Puntland go'aan bay qaadatay marka inay cadawgaas isku si loola dagaalamo 24 saac soo socdana xuduudaha Puntland dhamaan waxa la geyn doonaa xeriyuhu ciidamada hadda jooga xeriyaha ku jirahay waxay ka bixi doonaan xeriyaha waxayna isku teedin doonaan waxay xiri doonaan dhamaan xadka ay Puntland la leedahay cid kasta ama maamul goboleed ahaato cid kala ahaatay xadkaas waa xirmi doona dadka shacabka reer Puntland dagaalkaas ha loo diyaar garoobo intaas kaga baxaya shacabka reer Puntland firdhiya albaan leeyahay fariinta firdhiya gaarsi firdhiyow khaladka aad Puntland maanta cadow ugu soo raacday xasan sheekh maxamed rakaabka ugu noqotay tii shalay ku soo boodgareysay maanta ku soo boodgareysa cadawgaad u soo raacday maanta ee aad jamhadaan dhisaya jamhadaan hadii la ku rooyay xasan idirsaday jamhadaan Puntland ku furaya inqaabteeda waad maraysa xaqiiq kelmadda ay qora maanta inqaabteeda waad maraysa laga yaabay inqaabteedu inay saamayso shacabka reer SC Khaatumo oo walaalahaya
maadaama ay gacanta ka qaban waayeen maadaama wax garadka shacabka SSC ay oran waayeen war Puntland lagama geeyo waxaa dhici doonta si fiican u dhageysta waxaa dhici doonta xuduudaha marka la xiro daasada caana booraha ay laascanaya $100 ka gaadho ama salgaba waayay inqaabta u diyaar garow xasanna waxaa tiraahdaa diyaarado dekada xamar wax iga soo qaada ii diyaaridhe runtan ku sheegaya maanta waxa miiska looga wada hadlay baan ku sheegaya Puntland go'aansatay xadkeeday Puntland xiranaysa ee xasan waxaad ku tiraahdaa si aan umadu u gaajoon ama u dhibaatoon xasan waxaad ku qaban waayeen ileen dadka aad ka soo jeedid iyo wax garadka aad ka soo jeedid gacanta waa ka qaban waayeen Puntland duminteeda iska daayna ku dhahaan haddaad u qaybsami kadib marka una qabataynta Puntland iyo xabadda Somaliland haddaad u qaybsami kadib adigeennimada sida la uga sabata bixi lahayd waxaan ku dhihi lahaa waxaad samaysataa cidii xamarkaaga soo rari lahayd dekadna ku noqon lahayd samayso wax tarka Puntland iyo haddii la ku rooyahay iyo dekadaha isticmaalaysid waa midka aad dabka u qaadato oo aad dabka kula wareegaysid oo amaanta Puntland dabka ka shaqaynaysid ee aad ku haysid jamhad laas qoray iyo aada iyo garow dagaal ku fura iyo sanaag baan diyaarinayaa baad cawaaqibkeeda maraysaa inqaabteeda maraysaa ay u diyaar garow nin baa alla ka dhigay waa la khalday iyo waa noqon weyday macna sameyn mayso laba maalmood iyo maalin xasan inta laas caana yimaada kugu qoslo oo kugu bahalkeeyana macnaha weyn ay sameynayso ma garanayo balse xasan markuu haduuba ku yimaado ay dhacdo inuu ku yimaado kala hadal inqaabta aad maraysid meeshii aad kaga baxsan lahayd inuu dekada ku sameeyo kala xisaabta in haddii la ku rooyo xamar laga soo raro haddii la ku rooyahay diyaarado dry bora lagaga sameeyo kala xisaabta shacabka reer SSC aad baan uga xumaa inaan hadalka noocaas dhagihiino maqlaan ayadoo aniga soo yeeris balse way ka fursan weyd waad qaban weydeen jamhadaha Puntland lagu bahalkeenayo oo Puntland raba in lagu dumiyo ninka aad noloshiisa diidaysin ma garanayo si uu adiga noloshaada u ogolaanayo qolo kasto ay u diyaar garow dagaalka aad gashay iska caabintiisa iyo inaad madhid inqaabtiisa aad baan idin salaamaya dadka reer Puntland waa salaamaya isku duubnaada fariintaydaas firdhiye gaarsi firdhiyow ha ka calaalin yaysan ku dhibin dambiga aad ka galaysid Puntland inqaabtiisa ina madhid yaysan ku dhibin shacabka reer SSC yaysan idin dhibin dambiga maanta laascana lagu galayo ee Puntland lagu sameynayo haddii la ku rooyaa jamhadaha ee Puntland jamhadaha lagu aasaasayo ee Puntland hal la dumiyo la leeyahay Puntland inay isdifaacayso yaysan idin dhibin hadhow aad baa idin salaamaya intaan ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh